asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodka koonfur hindiya ka jiraan fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskaraab saar like iyo share iyo commenti ka marno sidoo kale tan asxaabta kala duwan muuqaalka noo sheergareya si dabcan saaxiibo kala duwan noogu soo xirmaan waxaa mar koowaad ku bilaabanaa daawadayaasha qabada sheeka ku aadan xidiga caanka ee la wada jecel yahay Ranbir Kapoor iyo waxaan idinla wadaagna filim sameeyaha caanka Imtiaz Ali dib inay u midoobaan muddo 6 sano kadib filimkooda ugu dambeeyay wada sameeyay wuxuu ahaa mashruuci Tamasha horena waxay wada sameeyeen filimkii kalaasiga ahay ay lagu magacaabo dabcan Rockstar oo Ranbir Kapoor ku qaatay biladaha kala duwan haatan labadan awood badan waxay ku heshiiyeen filim cusub inay sameeyaan balse waxaa jirta sheeko ku aadan maalmihi la soo dhaafay in dabcan Ranbir Kapoor iyo Imtiaz Ali filimka ay ku midoobeen in looga hadlayo nolosha heesaaga muranka badan ee lagu magacaabo Amar Singh Jamkila balse haatan sheekadan gabi ahaan waxaa beeniyay Imtiaz Ali oo wuxuu sheegay sheekada dabcan Ranbir Kapoor iyo sidoo kale asiga ay sameynayaan inay tahay fresh story sheeko cusub sidoo kale aysan ku saabsaneen heesaaga lagu magacaabo Amar Singh oo muranka badan daawadayaasha qiimaha badan Ranbir Kapoor haatan wuxuu ku mashquulsan yahay dhamaystirka filimkiisa aan magaca loo bixin oo jaceylkii shactirada isku jiro oo uu la sameeyay gabadha lagu magacaabo Shraddha Kapoor waxaa directorka Love Ranjan filimka markuu dhameystiray kadib wuxuu bilaabi doonaa filimka weyn ee lagu magacaabo Animal oo uu dabcan hogaamiye ka yahay waxaana directorka mas'uulka lagu magacaabo Sandeep Reddy Fanga oo ku caanbax sameyntii fiimadii Arjun Reddy iyo Kabir Singh filimkan Ranbir Kapoor waxaa ku heliyaan Bobby Deol oo laadarka ah Parineeti Jabra iyo sidoo kale Anil Kapoor wuxuuna ka mid yahay aflaanta waaweyn ee la sugaa sanadka dambe inuu la imaado RK labada mashruuc markuu dhameeyay kadib ayuu dabcan Ranbir Kapoor bilaabi doonaa shaqada filimka uu diyaariyay director Imtiaz Ali markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan actorka la wada jecel yahay Kartagiya oo sanadii 2018 fanka Telugu ku qabsaday filimkiisii Blackbuster-ka weyn noqday Alexander oo haatan asagoo Bollywood dib loo sameeyay filimkaasna waxaa ku soo caanbaxay wiilka Balwan ee loo yaqaan Ahan Shetty hadda Kartagiya waxaa ka cusub inuu shaaca ka qaado filim cusub oo laga soo bandhigay kaartada ama sawirka idin muuqato mashruucan hogaamiyaha uu ka yahay Kartagiya waxaa lagu magacaabaa Raja Fikra Marka waana filim Telugu ah oo uu dabcan hogaamiye ka yahay filimkan daawadayaasha qiimo badan magac ahaan waxaa laga soo xigtay hadda ka hor isla magacan filim wato inuu sameeyay megastarka awoodda badan jirin JV filimkiisii Raja Fikra Marka waxaa la daawaday sanadii 1990kii mashruucaas ee dabcan magaca laga soo qaatay jirin JV teamkii filimkaasna way ogolaadeen saadartay wiilka lagu magaca Kartagiya wuxuu yiraahday aad iyo aad aan u faraxsanahay sharaf weyn iyo taw ka dhawaajiyay my boss ama wuxuu dhahay mudanahayga awoodda badan oo uu ka wada jirin JV filimkiisii ahay Raja Fikra Marka inay ka soo qaateen magaca filimkan daawadayaasha qiimo badan waxaa directorka ninka lagu magacaabo Sari Bali waxayna u tahay markii ugu horeysay uu director noqdo waxaa kula jirta gabadha lagu magacaabo Tanya Ravichandra waa filim xiiso badan oo Kartagiya hogaamiye ka yahay haatan shaqadiisa socoto waxayna u badantay Raja Fikra Marka in la daawan doono sanadkan dabiiqadiisa ama horaanta sanadka dambe marka nasiib uu aanan Kartagiya ciwaanada Telugu maanta heesto maadaama uu kaarta ka soo bandhigay filimkiisa xiisaha badan bal markaana soo qaadana qodob ku aadan murqaaniga Bollywoodka John Abraham asigana wuxuu dabcan soo gabagabeeyay doogista filimkiisa Satyamifa Jayata 2 kani waa qaybta labaad filimkiisa Satyamifa Jayata oo sanadii 2018 noqday super hit weyn John Abraham uu ku matalay askarigii ka soo horjeeday in la sameeyo ama dabcan uu arko waxyaabaha musuqmaasuq ee sidoo kale tan uu gubayay askarta kala duwan ama taliyayaasha kala duwan oo ku helo inay musuqmaasuq ku lug leeyihiin sidoo kale tan waxay filimkaas ku xifaaltameen Manoj Bajpayee Dora oo sidoo kale ku matalay walaalkiis haatan Satyamifa Jayata 2 shaqadiis way soo ilaatay waxaan lagu dhawaaqi doonaa waqtiga la daawan doono mashruuca marka hore waxaa la qorsheynayay in la daawo 13 bishii May ka soo gudubnay toddobaadkii Ciidul Fidriga laakiin saameyntii corona waxay keentay filimkan shaqooyinka u dhinaa in la dhameystiro waa tiyaatarka la saari waay hadda John Abraham iyo directorka lagu magacaabo Milib Safari waxay xaqiijiyeen shaqada filimka inay soo ilaatay John filimkan daawadayaasha qamada asiga dabcan askari mayal adag ku matalay sidoo kale asiga iska hor imaan doona si u badantay door xumaan ku matalay marka filimkan waxaa loo daawan doonaa laba John oo kala duwan oo isqaban doonaan sidoo kale tan shaashada ku dagaalami doonaan John Abraham wuxuu yiraahday waxay noo tahay sharaf weyn inaan dhameystirno filimkeena Satyamifa Jayata 2 oo wuxuu yiraahday laba toddobaad aan ku dhameystirno shaqadii dhineed haatan waxaan isku diyaarin doonaa ayuu ka dhawaajiyay inaan ku dhawaaqno xilliga rasmiga la daawan doono sidoo kale wuxuu dhahay Hindi ha noolaato mashruucan waxaa loo badinaa daawadayaasha qamada in la daawan doono toddobaadka dabcan loo yaqaan xurriyadda Hindiya 15 Agoosto laakiin waxaa la John Abraham filimkiisa kale Attack asigana waqtigaas uu qorsheeyay marka John asiga qaadan doono go'aanka ugu dambeeya ku aadan Satyamifa Jayata 2 ama Attack midkii soo horbixi doona waxaan atirisha kuwaad filimkan ka Amarya Dastoor sidoo kale tan Manoj Bajpayee oo loo yaqaan Dora doorkiisa muhiimka ayuu qaadan doonaa sida ay filimkan u badan tahay qodobkaas dii aan ka gudubno aan firino qodob ku aadan daawadayaasha qamada actorka lagu
magacaabo Nathan waxaa maalmo kor in la wadaagna filimkiisa Maestro inuu shaqo ahaan bilaabo laakiin hadda waa la soo gabagabay shaqada filimkan wax weyn uma dhineen wax yar u dhinay haddana waa la dhameystiray Maestro sheek ahaan waxaa laga soo qaatay filimka dabcan Andadun ee hogaamiye uu ka Ayushman Quraana oo Bollywoodka indolka uu ku matalay sidoo kale Tabu iyo Radhika Apte ay kula jireen saa darteed marka filimkaas kalaasiga noqday ee super hitka biladaha kala duwan lagu qaatay hadda reer Telugu waa qaateen hogaamiyena waxaa ka Nathan waxaa loo bixiyay Maestro kan waa filimka soddonaad ee Nathan hogaamiye ka yahay atoorahan wuxuu u baahan yahay sababtoo labada filim uu sanadkan la imaado kuwaasoo kale ah Jack iyo Rangade waxay ka noqdeen flop inkastoo sheekooyin kala duwan uu qaata la amaanay haddana ganacsiga laga filayo filimadaas way sameyn waayeen saa darteed directorka lagu magacaabo Miralabaka Gandhi wuxuu haatan shaaca ka qaaday filimka Maestro shaqadiisa in la soo gabagabeeyay dhawaana ay shaaca ka qaadi doonaa filimka waqtiga rasmiga la daawan doono filimka Maestro Nathan waxaa ku heliyaan gabdhaha kale ee Tamanna Bhatia oo matali doonta doorkii Tabu xumaanta ahay iyo gabadha lagu magacaabo Nabha Natesh oo qaadan doonta doorkii ee matasha Radhika Apte marka filimkan tiyaatarka la saari doonaa dhawaana waxaa shaaca laga qaadi doonaa xilliga rasmiga ee la daawanayo filimka Maestro bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan akhbaarta ugu weyn ee maanta jirta waxay tahay Akshay Kumar ama superstar-ka weyn wuxuu ka aamusi waa sheekooyinka sala dhex maray ku aadan in uu sameynayo filimka Doom 4 waxaan wada ognahay daawadayaasha qiimaha badan bilooyinka ugu dambeeyay in la sala dhex maray ama maalinba atoore la soo qaadana markii ugu dambeeyay waxaan la wadaagna Bravas in la dhahay asiga Doom 4 hogaamin doono Akshay Kumar ka sii horay aad iyo aad loo hadalhay laakiin Kumar hadduu u cadeeyay daawadayaasha qiimaha gabi ahaan wuxuu meesha ka saaray sheekooyinkaas wax kama jiraan inuu yahay wuxuuna yiraahdaa Akshay Kumar waa fake news ama sheeko dabcan aan waxba ka jirin ama been abuure Akshay Kumar wuxuu sheegay kambaniga caanka Yashat Films kaliya inuu u sameynayo filimka weyn lagu magacaabo Prithviraj oo haatan shaqadiisa socoto qorshahan uu yahay dabiiqada sanadka in la daawado Kumar wuxuu yiraahday ma jirto filimkan aan ka wada hadalnay anigii Aditya Jabra oo ah mas'uulka ugu sarreeya kambaniga Yashat Films marka Akshay Kumar mashquulkiisa badan Doom 4 ninkan banaanku iska dhigo iska fogeeyay atooraan haatan waxaa u diyaarsan filimada ay kamid yihiin Bell Bottom oo la daawan doono 27 bisha July nagu soo foole Surya Fansho dhawaan lagu dhawaaqi doono xilliga la daawan doono Bajam Bande uu soo gabagabay asigan lama sheegin xilliga la daawan doono Prithviraj oo haatan shaqo ka hayo Raksha Bandan uu shaqo ku bilaabi doono Atrangiire asigan uu diyaarsan yahay Ramsey 2 dhawaan doowis ku bilaabi doona filimka Oh My God 2 asigana doowis ku bilaabi doona iyo mashaariic kale marka Kumar farqihiisa way buuxaan wuxuuna iska fogay sheekooyin ku aadan Doom 4 inuu sameeyo bal markaana soo qaadano qodob ku aadan daawadayaasha qamada dhankaasi fanka Telugu maxaa ka jiro culays xoogana ka jira sababta ay haatan waxaa lagu dhawaaqay maamulka Telugu in tiyaatarada ay furan yihiin laakiin waxaa la sheekada fanol faray kama qodna sababta ee Andhra Pradesh iyo soo kale Telangana waxaa la wali waxaa ka jira bandowga habeenkii sadarta waxaa la hadii bandowga habeenkii uu jirane tiyaatarada dib lama furi karo oo hadii la furo waxaa la filim waaweyn ma soo bixi doon rajada la qabo waxay tahay bartamaha bisha July in wax walba la xaliyo sidoo kale ismaamulka Telugu waxaa laga dalbaday inay faraha ka qaadaan sicir goynta aflaanta tigidhka lacagta lagu iibsana waxaa la ogaa dhibaatadii qabsatay filimkii Fakil Saab ee Pawan Kalyan hogaamiye ka kadib markii ismaamulka Andhra Pradesh ay soo farageliyeen oo ay dheen lacag fixed ah filimka lagu daawana taasoo dhibaato ku keentay dabcan qoliyaha tiyaatarada iskale kuwa cajaladaha qiiban maadaama ay jecel yihiin hadba dhimaandhiga isa balag intuu la egyahay in sicirka suuqa loo daayo filim weyn haddii uu jiro lacagta tigidhka sare in loo qaado filim yar hadduu jiro lacagta dhexaad in laga dhigo in suuqa fanka aan lasoo faragelin ay dabcan haatan codsadeen producerska iyo soo kale exhibitorska iyo distributorska waa kuwa filimada maalgeliyaan kuwa tiyaatarada iskale iyo kuwa cajaladaha qiiban waxay leeyihiin bishii Abriil arrimihii dhaco kaliyaysan soo laabo marka labadaas arrin markii xal loo helay kadib ayaa tiyaatarada dib loo furi doonaa oo waxaan la daawan doonaa filimada ay ka mid yihiin Tag Jagdish oo Naani hogaamiye ka yahay Love Story naga Jatanya hogaamiye ka yahay filimka lagu magacaabo Most Eligible Bachelor oo hogaamiye uu ka actorka lagu magacaabo Akhil kadib waxaa ku xigi doona filimada waaweyn ay ka mid yihiin Radhe Sham Ajarya iyo Pushpa iyo mashaariic kale marka aan wada sugno reer Telugu iyo go'aanka wada qaadan doonaan iyo sida wax u xaliyaan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kala soo qaadan karno waxaa qaybka haatan in muuqdo superstar-ka caanka laga dambeeyo Prithviraj Kumar filimkiisa labaad directorka wuxuu si rasmi shaaca kaga qaaday inuu hogaamin doono megastar reer Malayalam ninka lagu magacaabo Mohanlal Prithviraj Kumar hadda kahor wuxuu sameeyay filimkii Lucifer ee All Time Blockbuster ka noqon sidoo kale tan uu ku xarakiyay Mohanlal markaan waxay ku midoobaan dabcan filim fariintiisa ay tahay hab shactiro iyo arrimaha qoyska waxaana dabcan loo bixiyay Brodadi Prithviraj Kumar wuxuu leeyahay filim kasta oo director ka noqonay waxaan jeclaan lahay inuu hogaamiyo Mohanlal sadartay marka filimkiisa labaad Brodadi Mohanlal hogaamiyay laakiin ogaada daawadayaasha qamada Prithviraj Kumar asagana filimkan kaalin fiican ka qaadan doona waxa kale doorar muhiim ku gabadha lagu magacaabo Kalyani Priyadarshan Meena Lawla Alexa iyo Jalal kale ka soo muuqan doona filimkan waxaana soo kale maalgelin lahaa mas'uulka lagu magacaabo Anthony Brambavur shirkadiisa lagu magacaabo Ajfirad Cinemas ayaa dabcan mashruuca maalgelinayso filimkan qorshihiisa wuxuu yahay dhawaan doobis in lagu bilaabo sadartay Mohanlal Prithviraj Kumar
mar kale midooban waxayna ku midoobaan filimka Brodadi oo qorshaha u yahay in la daawado sanadka dambe. Daawadayaasha qiimo badan aktarka lagu magacaabo Prithviraj Sukumar wuxuu ku jiraa mashquulkiisa ugu badan sababta waxaana la wadaagnay maalmo ka hor filimkiisa lagu magacaabo Case Cold inuu diyaarsan yahay oo 30 bishan June laga daawan doono barta Amazon Prime Video. sidoo kale waxaa u diyaarsan mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin Kuruthi, Star, filimka lagu magacaabo Barmam, sidoo kale mashruuca lagu magacaabo Kaduva wuxuu ka soo muuqan doonaa Baros oo xitaa Mohanlal hogaamiye ka yahay, filimka lagu magacaabo Therbu iyo mashaariic kale. marka Prithviraj Sukumar filimkiisa ugu dambeeyay ka soo muuqdan wuxuu mashruucii sida weyn u hirgalay ayaa Binam Koshiyam oo haatan asigoo dabcan Telugu la sameeyay iyo sidoo kale asigoo Bollywood la sameeyay. ugu dambeyntii aan soo qaadano Today in History maanta kale taariikhan aflaanta soo bixin maanta kale waxaa soo bixin daawadayaasha qamada filimo caan filimadaas waxaa kamid ah filimka Hamshakalis ee shactirada badan oo la soo keenay Saif Ali Khan iyo Sokorta Jashmuq oo ku matalayay dabcan 9 door oo kala duwan. sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Itihas oo Ajay Devgan hogaamiye ka ahay. sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii Ditali oo isugu imaadeen Aftar Shiv Dansani iyo saaxiibkiisii ahaa Harjit Jashmuq. bal marka wadan ku bilaana filimka Hamshakalis maxaa ka diiwaan gashan 20 June sanadii 2014 soo baxay filimkan faloob noqday inkastoo shactiri Jahawarar u ahay wuxuu soo xariyay 52.73 karoor waxaa lagu qarash galiyay 64 karoor. mashruucan sidoo kale waxaa doorar muhiim ku lahayn sida haatan diiwaan gashan Tamanna Bhatia, Bibasha Basu iyo Jalal kale. filimka Hamshakalis qoliyaha cajaladaha qaybeen saami ahaan waxay keeneen 26 karoor. sidoo kale waxaa tigidh goosteen 5,993,000 oo qofood lacagtii 52 karoor soo xariyay filimka Hamshakalis muddo haatan laga joogo 7 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 60 karoor. sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay daawadayaasha qamada filimka dabcan Itihas oo Ajay Devgan hogaamiye ka sidoo kale ku jirta xidigta caanka ee Twinkle Kanna laakiin nasiib daro filimkan faloob noqday wuxuuna soo baxay 20 June sanadii 1997. Itihas wuxuu soo xariyay 6.5 karoor waxaa lagu qarash galiyay 5 karoor. qoliyaha cajaladaha qaybeen filimkan saami ahaan waxay ka heleen 3 karoor. waxaa tigidh u goosteen filimka Itihas 5,926,000 oo qofood lacagtii 6 karoor oo keenay filimka Itihas muddo haatan laga joogo 24 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 60 karoor. dhinaca kale daawadayaasha qamada maanta kale waxaa soo baxay filimkii Ditali ee shactirada badnaay Aftab, Harjit Jashmuq iyo jilayaasha kale ka soo muuqdeen oo ay qayb ka yihiin Ayasha Takiya Remisin. laakiin filimkan wuxuu noqday flop inkastoo fariintiisa Jahawararka laga helay wuxuuna soo xariyay Ditali 8.48 karoor waxaa lagu qarash galay 12 karoor wuxuuna soo baxay 20 June sanadii 2008. qoliyaha cajaladaha qaybeen saami ahaan waxay keeneen 3.30 karoor. sidoo kale waxaa tigidh goosteen 1,786,000 oo qofood filimka Ditali lacagtii 8 karoor uu soo xariyay muddo haatan laga joogo 13 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 20 karoor. guud ahaana barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood iyo Koonfur Hindi ka jiraan intaasaan ku soo celinana fadlan fiirkiina ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.